maantay lugta waxay la gashay programmada iyo tartanka ka socdo tartanka iyo programka ka socdo dhankan qolo diinta gaalada faafinayso si dadban u faafinayaan oo sheeganayo in lasoo farxumeeyey la haleeyey qolo kalena waxay faafinayaan in qaniisnimada ay fiican tahay oo ku kaliftay in waalidkood dad ka mid ah ay farxumeeyeen dowladaha ka dambeeya ee fangareynayo sida dowladaha Scandinavianka Denmark, Norway, Finland, dowladda Canada kuwa kalena waa Imaaraat iyo Sacuudi dhinaca Axmed Biif iyo Cabdihani iyo Maxamed BK lacag ويابنا waxaan leeyahay maxamed wehliya Aisha soo dhawaada Jamaal Nuur Bilay Maxamed xarsi soo dhawaada dhamaan walaalaha sharafta leh والله برنامج عاود ولا حساسي واي وعيدلين iyo fashil ku socdo wacyigelin iyo fashil ku socdo dad badan oo fanaaniin DJyo iyo dad culimo iska dhigaayo aan idinka dargeynaya aniga uma socdo qabiil shakhsiyaad gooni kala ma socdo wax yar muhiim ah in aan idinka dargeeyo barnaamijkana habeen walba soo gala live كانكيga shaqadayda waqtiga aan u qasaariyo inaan idila wadaago xogta ugu dambeeyo informationada ugu dambeeyo adinkana aad meel la gaarsiinayeen waxaan rabaa inay xogaa xanuunka dareemaan fanaaniinta oo dhan kuwa saaxiibka nahay kuwa korka aqaan kuwaan is aqoon salaamo walaalaha sharafta leh intiinaan joogtaa iga qiimo badan inta kale dhima leh barnaamijkaana waxaan ka dhigayaa taxane marnaba kama seexan doono walaalaha sharafta leh waxa baaritaankii aan ugu jiray inaan wax ka ogaado qaabkii ay fanka uga baxeen Maxamed BK Cabdihani iyo Axmed Biif ninka Axmed Biif ahaa waxaa la soo xiriiray wahabiyiinta Sacuudiga iyo Imaaraadka Itixaada la soo xiriireen Imaaraat iyo waxaa la soo xiriireen live aan ku jira saaxiib yaal waxaa la soo xiriireen wahabiyiinta اتحاد waxa laga codsaday oo lagu yiri niman yahow fanka Axmed Biif personally waxa lagu yiri saaxiib fanka imisa ka soo gasho wax iga soo galo faa'iido ma lahan biilkayga iyo mushaarkayga bas ayaan ku qaataa waxay dhahan haddaba waa nala shaqeynaysaa lacag inta rabtid noo kusiinayna ilmahaaga waxbarashadooda ijaarkooda iyo biilkoodana meelan ku saareenaa laakiin hal shuruud waa inaad tashkiilisaa fanaaniinta meel kale aadan aadin fanaaniinta la tashkiiliyay Cabdihani iyo Maxamed BK ayaa ka mid ah oo Maxamed BK kulli shuruudna looga dhigay in ay wacyigelin ku sameeyaan oo ay dhahaan fanka laga baxo diinta loo soo jeesto taasina ma ahan mid oo fanka uga baxeen diin jecel iyo alla ka cabsi fanka waxay uga baxeen lacag macquul ahayn loo sheegay oo la yiri hadda intaas oo qofood
kasoo saartaan fanka aad ku wacyigelisaan. weli annaga uma baahanin keliya fanka waan ka baxay waan fadhiisanaa, waxaa idinka rabnaa inaad tashkiilisaan dadka oo muxaadaraysaan. waana li barayaa cashirada akrinaysaan iyo dhammaan kulli waana li barayaa, waana li xafidsiinayaa. tashkiilin iyo wacyigelin inaad ka shaqaysid. tashkiilin iyo wacyigelin ka shaqeeya. marka haddeer waxaa jiro wiigan dad lala soo xiriiray ee London nala degan oo ayagana diilka u socdo oo sheegayo qiimaha ay uga bixi doonaan fanka. wallahi inaan kalmad waan idinkugu dareen walaalaha sharafta lahow. waxaan rabaa tartanka u dhexeeyo fanka iyo suugaanta, tartanka u dhexeeyo qolada culummada ahoo diinta rabta inay faafiyaan oo fanaaniinta ka saaraan, iyo kuwa diinta kirishtaanka faafinayo, iyo kuwa faafinayo qoomuluudnimada iyo dhaqan xumada, lesbian iyo gay. marka tartanka sida uu u socdo, nimankii wahaabiyiinta BK Axmed Biif iyo Cabdihani ayay hanteen. waxaad maqli doontaan maalmaha soo socdo dumar kusoo biiri doono qaarkood oo dhihi doono waa ka baxnay. marka shuruudda ay uga baxayaanna waxa waaye lacag ayaa la siinayaa. oo hale iyo ifraax wadani oo islaama soo dhawaada walaalaha sharafta leh. waxaan rabaa program xasaasi waaye. dadka la qalday iyo dadka la qaldi doono iyo dhaqanka Soomaaliya ka socdo maanta baarlamaanadaada, xildhibaanadaada, wasiiradaada aan rabaa inaan idinka dabageeyo. raxmo soo dhawow. fadlan programka hala share gareeyo. waana muhiim inaad wax ka ogaataan Soomaaliya tartanka loogu jiro in dadkan la haleeyo, la fadareeyo, la duleeyo. qaarna ay isku dhiibeen qeybo dhaqanka shabaabnimo iyo tashkiilin iyo wacyigelin, iyo qaarna ay isku dhiibeen dadka hadda sida daacadda oo fanka iyo suugaanta uga baxay oo duurkoodii galay oo wax iska barto. sida haddeer allah xafidee Aweys Khamiis Cabdalla Mabuta wuxuu uga baxay fanka iyo suugaanta mucjiso aan arka waayuu yiri. laakiin Axmed Biif, Cabdihani iyo BK waxay qaateen lacag sida magdhaw camal qof laga dila camal si ay uga baxaan fankaas. mushaar daily ah joogto ah ay ku qaadanayaan. okay, aan dhahno wada fiican ku socdaan. fanaaniinta ka qaadeen, fanaaniinta ayay ka saarayaan fanka iyo waxaas. aan dhahno okay, wahaabinimada iyo tashkiilinta iyo itixaad oon ognahay Fahad Yaasiin baynu itixaad ahaa. aan dhahno okay, wada fiican ku socdaan. wadada labaad oo iyagana ay ku socdaan qolooyinkan aad arkaysaan dad badan oo gaalo ah, Soomaali gaalo ah, marka ay soo baxaan ay dhahaan waxa waana la dilay iyo dadkayga la dilay iyo hooyaday aabahay la dilay, anoo yaraa la kufsaday, anoo yaraa la xoogay, reerkeena la xoogay. ثم والله بالله تالله waxaa lagu qaadanaya lacag. waxaana bixinayo hay-adaha Scandinavian-ka iyo Canada ayaa ugu weyn. Ingiriis iyo Mareykan waxaa ka horeeyo Canada iyo Scandinavian. Scandinavian-ka waa wadamada Finland iyo Denmark iyo Sweden iyo Norway. marka si qalbigaaga iyo niyadaada iyo maskaxdaada loo qabsado oo aad u beerjilacdid, aad u dhahdid wallahi run way arrintan, waa run way wallahi waa dhacdaysan. haddaba haddii raggii fanaaniinta ahaa ee lacag ku qaateen in ay uga baxaan fanka, lacag ay ku qaateen oo mushaarkii iyo biilkii reerkooda la kabayo lacag la siinayo, ilaaha idinku dhaarshay dadka habeen iyo maalin u taagan oo leh hooyadeeyaa la kufsaday, anaa la kufsaday, diinta islaamka diin fiican maahan, waa ka baxay, waa yeelay. way aan waxba looga qaban. imise qof aad ku aragteen baraha bulshada oo qof kasta oo gaaloobo muxuu islaamnimada u caayaa wax uga sheegaa? taasina waa hay-ad loogu talagalay in ay dadkeena madaxa ka qabsadaan oo
dadkan in ay madax intay ka qabsadaan ku wacyigeliyaan ay dhahaan diinta islaamka diin xun oo laisku kufsado waaye masaajida laisku kufsaday dugsiga laisku kufsaday ilaaha idinku dhaarshay intaasoo sano ayaad jirtaan soomaaliyana waa joogteene weligiin yaa lihiin macallin dugsi lasoo qabanayo la xirayo oo la leeyahay macallinkan ayaa dhib geystay maad aragteen weligiin yaa lihiin maa maqasheen qofkan hadduu sa weynaaday markuu weynaaday oo ninkii dhibka u geystay uu yiri hebel waaye markuu imaado waad dili kartaa waa ka arsan kartaa waxaa leedaha markaa iraayo ninkaan saan ii galay waad dilaysaa laakiin walaalaha sharafta leh howshaan waxaa wado hay-ado haddaan laga horteginna intaan iyo ka badan ayaa dhacayso maantay magaalada muqdisho waxaa ka jirto 12 kaniisad waxaad aragteen hal kaniisad ee Hargeysa ku taalo waxay sheegeen nimanka masiixiyiinta ee gaalada waxay sheegeen Soomaaliya in ay ku leeyihiin 500 oo macallimiin ah waxaad tagi kartaan xafiiskooda ugu weyn xaruntooda ugu weyn ee Nairobi waxaad ka fiirin kartaan ani website iyo YouTube ayagoo ka qudbeenayo oo ku faanayo leh Soomaaliya waxa inoo joogo 500 oo macallimiin ah ayaa Soomaaliya inoo joogo maantay muqdisho waxaa ka furan 12 kaniisad koonfur galbeed warkeeda iskaba dhaafno koonfur galbeed waxa isgarab ordaayo ilmo yar inta la soo afduubto 2 sano 3 sano laga dhaadhiciyo dadka muqdisho joogo dhan waa gaalo hal isku qarxiyo cunugii la qabto wuxuu ku leeyahay war hadda leeba ogaadaba inaan wada qaldan ku socdo because ninkan waxa la baraayay intuu ka qaangaarayo dadkaas waa gaalo dadkaasaan ku jihaadeenaa Soomaaliya qarax haduu ka dhicina lacag lama helaayo dawladaanan helenin United Amisom aan helen dalkan waxa leeyahay waa nabad Amisom ka baxdo haduusan qarax dhicin marka waxaan oo dhan waa mashruuciyo waa hay-ado sida hadda culimada aad arkaysaan Maxamed BK Abdi Hani aad arkaysaan Ahmed Beef oo leenka soo xiray Sacuudiga nimanka itixaad ee Sacuudiga ninka leenka soo xiray Ahmed Beef fanaaniin badanna oo Mareykan iyo London wada joogo oo ilaa iyo shalay ilaa xalay aan la sheekaysanayay xogta dhan aan ka aruurinayay marba mid sidaan u wacayay oo iskaga dhigayo qof qabaar mooga iskala sheekaysanayo inta aan ka ogahayna la wadaagay meesha ugu muhiimsaneed iyo leenka sida loo soo xiray dilka sida loo soo xiray iyo dadka ku jiro dhanna aan soo ogaaday marka ilaahaba isku soo aadiyay haddee raggaana taagan yihiin wacyigelin iyo tashkiilin ayaan uga baxnay fanka reality-gana tahay in ay fanka uga baxeen lacag in ay ku qaataan haddaan lacag la siinina fanka aynan ka baxeen qolo kale oo diyaar ah Mareykan iyo UK iyo Yurubtan kala joogana wada hadal ayaa u socdo maalmaha soo socdo ama wiigaga soo socdo ayaad arki doontaan qof caan ah oo media soo istaagay oo leh waxaan ka baxay fanka iyo sugaanta dhalinyarada ugu badan haba ahaadaanba Somaliland laakiin Europe iyo Mareykanna safka lagu jiraa fanka iyo sugaanka ka bixitaankeeda it's not easy reality-ga haddaa rabtaan it's not easy sababtoo ah qofkan waxa waaye qof normal maahan qof caadiya maahan qofkan wuxuu isticmaalayaa dadkan fanka iyo sugaanta aad ku arkaysaan oo maskaxda badan oo kun hees hal mar xafidayo qaadayo asalkoodii waxay wada ahaayeen dad xaafid quraan ah ahludiin ayay ahaayeen badanaa u fiirsada qof kaartaan wareysta oo qof kaartaan wareysta dadka xoogaa ahludiin xaafid quraan ay u badnaayeen badanaa waxa inta balwad ay leeyihiin oo jirkooda u baahan marka hore in la kalin gareeyo ama bil aadanimada lagu soo diro qamri xashiish qaad cocaine intaas kala nooca sigaarkii ku dar shiishadii ku dar 6 baaluunku idinka dambeeyay say idinkugu macnaa baaluun buufin 7 shay oo kala nooca lacag walba caawa xaflad kasta ha tagaan lacag walba soo helaan 20,000 7 shay oo balwada ah caawa la isticmaala la isku dilaya qofkan normal maahan qof ku fahmaya maahan waxa waa inta moodkaas uu ku jiro ilaahay xataa ma yaqaan laakiin moodka markuu ka baxo oo saaxiga keeno waxa laga yaabaa maanta hadduu shid yahay
ama maanta program wuxuu diyaarsan yahay intaas inuu kula sheekaysto oo waqti isku heshaan. laakiin inta fanka uu ku jiro music uu ku jiro waa wada dheelaysaan waa sheekaysanaysaan beri haddaad aragtaan xalay maba ahanba adiga qofkaa la sheekaysanaysa qofka ma marka tashkiilinta iyo wacyigelinta iyo ka bixitaanka qofkan waa ilaahay inuu ku soo dejiyo maahane si sahal horta ugama baxaan inay mucjiso ilaahay tuso maahane. Axmed Biif diilka uu ka soo xiray Sacuudiga lagu amray inuu wacyigelin iyo muxaadaro iyo waxaas uu jeediyo laakiin badanaa xooga uu saaro fanaaniinta inuu ka keeno fanaaniinta inuu ka soo saaro heesaha oo dhaho kaalay soo gala lacag ayaa lagu bixiyay. maantayna waxaad maraysaa dijeeyo iyo fanaaniin gobolada Soomaaliya ilaa Muqdisho intay tagaan ku faafinayo dhaqankii galmada rag aroosi karo dumar aroosi karo. 2018 2019 all programmadeeda liixaaj dib ugu laabta. maantay waxaad arkaysaan baarlamaanka villa Soomaaliya ayuu hor yaallaa hala saxiixo iyo lama saxiixayo. imise wasiir imise xildhibaan ayaa magis ah soo baara. wasiirka warfaafinta hadda midkaan la magacaabo ugu dambeeyo anuu dariskeyga yahay London aan wada degannahay 10 daqiiqo gurigiis ku jirnaa. wuxuu ka mid yahay ururka masiixiyiinta gaalada. quraanna ma yaqaan diin muslim ma yaqaan weligiisna diintaas uu faafin jiray. marka ma waxaan ku dagaalanaa in aan iska difaacno dhaqan xumadan oo dalka lagu hayo iyo qaraxyadan hay-adaha lacagaha ku qaadanayo Soomaaliya hadduu qarax ka dhicin dowladda dhaqaale ma helayso amisoomna ma sii joogayaan Soomaaliya hadduu qarax ka dhicin. dad meeshaana waxay aaminsan yihiin qaraxa dadka ridaayo inay isla ayagii leeyihiin dadka deegaanka isqarxinayo. hadday Mareykanka ay ku leeyihiin ganacsiga Soomaaliya annaga noo xiran tahay oo IMF banki ku leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya annaga ugu talagalnay inaan gacanta ku dhigno 1995 lacagta shilin Soomaaliga la gubay saameynteediina maanta Puntland ayay gaartay in lacag shilin Soomaali dhan laga mamnuuco Puntland oo dollar kaliya wax lagu qaado bajaajka xamar dollar lagu raacaa step walaalaha sharafta leh. waxaad arkaysaan maantay dad social media ka buuxa taqaanaan ama ha isqaawiyaan ama haddahan diinta muslimkaan ka baxnay ama haddahan lesbian iyo nahay gay aan nahay blue makeup iyo nahay hay-ado ka dhisan Scandinavianka iyo Canada ugu badan oo fan garanayso dadka dhaqanka xun ee maantay Soomaalida ama u soo fadhiistay social media ama dalkii dib u tagayo oo tuulooyinkii gobolada ku wareegayo ayagoo fanaaniina ayagoo DJ ah iyo ayagoo shakhsiyaad hay-ado waxaad arkaysaan dad social media inta live soo fadhiista ka sheekeynayo oo ku leh macalinka dugsiga soo furxumeeyey iskuulka lagu furxumeeyey kana inta lagu furxumeeyey. imise ayay ku qaateen dowladda Soomaaliya ama maamul goboleedyada ama Somaliland dowladda Somaliland imise ayay ku qaateen. ninkii ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska waxaa la lahaa oo Soomaaliya tagay Somaliland tagay waxaa la lahaa kan nin maahan naag waaye iyo naag ma ninkan reer uu leeyahay. dowladda Ingiriiska dabagal ay ku sameeyeen waxay soo heleen ninka bodyguardka u ah meel walba muxuu daba taagan yahay hotel walba uu galo muxuu la taagan yahay. waa sababta aan u dhahay ra'iisul wasaare Khayre Cumraani maxaa daba dhigay. Cumraani shaqadiisa gobolka Banaadir waaye. Cumraani America Faransa Denmark America Faransa Belgium iyo Qatar iyo 46 maalin ee dhul Samareeb uu la socday. maxaa daba dhigay maxaa ka dhaxay. haddii farmaajana yahay ninkii saxiixay oo deeqo u saxiixay
dhaqanka gaalada in nin gaal ah oo nin Soomaali oo gaal ah inuu Soomaali xil ka qaban karo mala socotaan bil Ramadaan farmaajo inuu yahay ninkii kaniisad gacantiisa xariga uga furay Nairobi bil Ramadaan ninkii kaniisada xariga ka jaray homoga idin siinaya labadaas nin baaritaan ku sameeya meedin dhahayo midna waa gay midna waa gaal laakiin adinka adin diray maanta waxaynu maraynaa Soomaaliya waxaanu maraynaa in lagu dhaho isma maamuli kartiin in lagu dhaho ma heshiin kartaan in lagu dhaho diinta muslimka waa diin adag diin argagixiso macallimiintii dugsiga quraanka ayaa maanta waxay isku bedeleen dad mushaar ku qaato in ay ciyaalka ay dhahaan isqarxiya si hadhow loo dhaho dugsiyaasha dhan Soomaaliya waxa haysto argagixiso ma la soo xiro afgooya waxa joogo nin Pakistani ah oo ciyaalka wax ku baro nin Afghanistan ah oo qaraxyada baro ya nin Pakistan ah nin Afghanistan ah oo qaraxyada baro ciyaalka iyo isqarxinta baro oo dugsi ku leh afgooyu degan yahay ma la soo xiro qabto no saraakiisha dawladda mushaar ayaa laga qaadaa bil walba haddii kale waa la qarxinaa waa la weeraraa checkpoint kasta ay ku yaalo wadada ex control afgooye ilaa iyo lambar 4 waa la qarxinayaa haddii ay ka hadlaan arrinta shabaab marka imise hay-ad ayaa isgarab ordayso hay-adda ugu fiicneed dowladda Ingiriiska ayaa fangareynaysay waxayna ahayd la dagaalanka qabyaaladda hay-adda la dagaalanka qabyaaladda oo hadda dacwad iyo report aan ka gudbinay dowladda Ingiriiska ayaa lacag siinaysay mushaariye noqdeen filla Soomaaliya degan yihiin shaqadii loo soo diray in wacyigelin ay gobolada ka sameeyaan ay dhahaan qabiilka ha laga tago dadkana ha la walaaleeyo gobolada nimankii wareegay maanta mushaari waaye shaqadii ay hayeen waa laga joojiyay waxa la yiri jooji filla Soomaaliya waxay ahayd Facebook nimanka ku bixinay in hawi daarood la isku caayo ilaa nimanka daarood intaan wacay aan ku dhahay niman yahow hawi daarood wax ka jira ma lehe shakhsiyaadka ku dhagantihiin la dagaala annaga waa ku dhaganaay wayna hagradeen ayagoo hawiye matalo ayayna hagradeen daarood u roonaayeen iyo dir iyo saaq iyo digli marifle annaga hawi wax uma qaban markaan arkay in dhalinyaradii ay leeyihiin nin hawl shaqayso waa shaqaysanaynaay ninka ugu darna hadalkaas igula hadlayna saaxiibkay deeq geyso maajigo saaxiibkay Maxamed Cali ma sha Allah uu iga aqbalay ilaa hadeer kama hadlo hawiye iyo daaroodi kama hadlo Maxamed Cali asaan waa iga aqbalay xerta sheekh oo nin walaalkeeyo saaxiibkeeyo xataa isagoo daarood ku dhagan ayaan intaan la hadlaa waxaan ku dhahay brother waxaan dad baa lagu fangareynayaa oo la leeyahay hawiye daarood isku caaya adiga waa ogahay cidna lacag kuma siiso nimankan daarood caynaysid iska dhaaf hawiyaha ha u bilaabin jooji xerta sheekh waa nool yahay waa weydiin kartaa laakiin markii aan arkay midkii oromada ahaa duqbilow oo asalkiisa hadaad golay anigu waxaan soo baarin kama hadlo wuxuu la dhashay aadan qayr caruusa ayuu la dhashay duqbilow waa aadan qayr caruusa ayuu la dhashay caruusa waa nimankii ogaadeen Cabdulla Xaniyaha ka jari jiray oo gudaha Itoobiya ka soo qaxiyo dhinacaan ugu soo carreen jigjiga iyo caruusa oromade aadan qayr la dhashay ninkan waa aadan qayr shaqo ma ku lahan ogaadeen 2014kii ayuu af Soomaaliga dib ku bartay dadkii yaqaanay 2015 iyo 14 wixii ka horeeyay waad wareysan kartaan haddaad raadisid duqbilow profilkiisii wax badan ku soo baxaya aniga waxaan hubin kuma degdego ninkaas oo kale Etoobiyaanka inoo soo direen ayaa hawiye iyo daarood iyo inoo ceen jiray marka kulay waxaan u maleynayaa propagandadii iyo wixii ay wadeen anna dhiiqadii waxaan ugu talagalay xanuunka inay dareemaan because annaga si kastana loo caay ma kala jecleen waa iska ignore gareyn jirnay laakiin marka aniga meesha soo galay
والله بالله تالله لندن ودونك حتى ومرواي وريا دارودا نعبتهي دارودا نعبها waxaan leeyahay ma awla ku jeclaa ma awla ku jeclaa sababtoo ah xanuunka ayga igaarsiiyay anigoo on anoo nin weyn ah 30 jira aan ka carri jiray hawi inaan sheegto sababtoo ah waxa iga batay meel kastaan tago hawiyuhu waa tuugo mooryaan kida macnaha waxaan oo dhan waxa waaye program la sameeyay laakiin taariikhaha iyo baaritaanada iyo dabagalkii aan sameeyay hal kalmad haddii lagu soo eedeeyo la idhaho kalmadaas ayaa been ka sheegtay wallahi billahi tallahi xaal ayaan ka bixinayaa hadda sida programmada hore u sameeyo kale aan leeyahay nin walba oo daarood ah waxa wax ka dhiga hawiye markaan leeyahay intaas ayaga waxaan dareensiinaa la'aanteen inaaba socon karin farmaajo hadda dadaa ku dhegan oo hawiye daarooda loogu dhegan yahay sababtoo ah laafafkii facebookada la iska cayna darteed le farmaajo loo nacay maahane farmaajo wuxuu la soo koray wixii ka dambeeyey dalka markuu ka baxay hawiye aabihiis waxaa dhalay hawiye wuxuu ku dhashay guri hawiye weligiis aabihiis reerka uu ka dhashay aabihiis reer ka dhalay oo hawiyaha ah reer caan ah oo adduunka oo dhan ku faafsan waaya abargidira oo sacada reer jalaf oo magac leh meel walba adduunka faafsan marka waxay programmadii iyo propagandadii iyo wixii maanta lugta waxay nala gashay in lacag lagu bixiyo hebel soo tashkiili fanaannimada ka har lacagta artid sheego imisaa kaa soo geli jirtay wallaahi sanadkii 40,000 50,000 sanadkii 100,000 oo dollar Axmed Biif Cabdihani iyo BK wixii ay keenaan dadkii ay keenaanna waxay qaadanayaan 40,000 50,000 30,000 dilkana waxa soo xiray Axmed Biif lacag haddii looga baxay fanka oo diinta ay sheegan islaamka ay faafinayaan oo fanaaniinta wacgelinayaan ay leeyihiin warkaale lacaga meesha taale waxaan fanaaniinimada waa ku daanay ka soo bax oo lacag looga baxayo ilaahay idin ku dhaarshay dadka laafafka soo galo oo leh anagoo yarana la kufsaday diinta islaamka masaajidada dugsiyada lagu kufsaday waa dadka lacagaha ku qaato oo lagu fangareeyo inay diinta islaamka dhamaan ay dhahaan diin jirta maahan hala gaaloobo waa waxa keenay inay wada gaaloobaan ilaahay hadda diinta waa ka baxay maysan dhihin haddaan hal qof aa wada taqaanaan aan meel idinka tuso mid show gabadha wadato oo yar oo maalin laga wareysanaya BBC miya mase Universal dhaqan celin ayaa Soomaali loo geeyay aabaheed wuxuu ku daray wiil way soo baxsatay intay safaaradda tagtay xalan ay waxay dhahday xooga lagu keenay meesha nina qabo way soo baxday dalkeeda ku soo laabatay nin labaad ee aroostay waxay tiri hadda iga furna xataa nina qabo ilaa la dhaho ninka waa laga furaya because ninka qabay nin kale aroostay marka haday caafimaad qabto iyo haday fiyoodahay adinka sheegay marka saaxiibaday fareenkayga milyan waxaad arkaysaan maalinba 10 cusub ee idin dhigaysaa oo iska aqbalaysaa gabadhii cusbeed ma oo madaxa xirneed oo dhukuro midii meelaha Jarmal iyo Faransi meelaha joogto waqooyiga ahayd oo iyadana baaba ahayd laba wallahi qof ay soo diri jiray blog iska saare waxa soo kala soo qaawinayo oo ku dhahayo Soomaalida nimankoodana maxan waay ma hadi hagaartay dawladda Somaliland ayaa lacag siiyeen waxay dhaheen waa ku baryeena mar dambe TV hanagu imaanin dhukurooy lacag la siiyay waana liga xareey lacagta de ka dhamaad laakiin waa soo laabanay wallahi waxa bartid baaskaaga wallahi dalkii dhan wuxuu noqday yaanan horumar la gaarsiin wadanka yaanan hore u socon yaana horumar la gaarsiin qashinkaano miiran ayay dalka ku soo daayeen muxuu yiri afka haddaan kala furo fanaaniin badan iyo deejiyeeyo badan ayaa banaanka u soo baxay Blue Makeup-na muxuu dhahay dadka isoo ceynaya haday joojin waayaan dad badan fashilinaaya
horta meeshiina inooga jira laakiin thuma wallaahi magaalada muqdisho ninkii tago diijeyaasha iyo fanaaniinta muqdisho tago ani ma raba magacyadooda inaan sheego laakiin xogtaasoo dhan kulli waa haystaan ciidamada saraakiisha dadka qaar inkastoo amarkaas uu ka wan yahay Fahad Yaasiinna milkiilahana iska dhigo wadaad inuu yahay islaam yahayna wax uusan ogeyn dalkaas kama dhici karo farmaajo hadduu yahay ninkii kaniisadda soo dahfuray Kenya uu qayrana yahay tiimka blue makeup jamiicadooda wasiirka warfaafinta ee villa Soomaaliya maanta uu yahay masiixi reer London oo diinta gaalada faafin jiray gabadha deeqana ay tahay masiixiyad kale xildhibaanada iyo wasiirada qaarna marmar ay ka soo fakato gudoomiyaha baarlamaankana uu yiri dhaqan xumadan ma dhacayso waxaad ku laabataan beejkayga lii xaaji 9 September waxaan soo qoray hotelka waa loogu ballamay hotelka maxaad ku qarinaysaan oo ku sheegaysaan banaanka u soo baxa hotelka aan iskugu imaanay dhaheen baarlamaanku ma sheegi karna 7 o'clock hotelka waxa aad ku haysaan diinta gaalada iyo sharmuutanimada iyo lesbian gay hala keeno baarlamaanka ilaahay wuxuu qadaray gudoomiye mursal inuu baarlamaanka horteeda ka jeediyay dadkii lahaa say ku ogaatay waxaan ahay ninka Fahad Yaasiin iyo Khayre iyo Farmaajo London intee ugu imaadeen oo u soo direen team caliyare kamid yahay Daahir Cali Sow 600,000 oo dollar miiskintana loo saaraa liir internet kala bax $1 milyan oo dollar la keenay lacagtii Daahir Cali Sow iyo Soole iyo dad badan qaatay 600,000 oo dollar la keenay waxa liir internet kala bax laakiin waxay soo ogeen dalkaas ninka iskala inaan ahay xabad joojin ninka ku dhawaaqay Talyaani markay naga adkaadeen oo siidkii dhintay Sheikh Xasan Barsame uu dhintay Ali Umar Cabdi oo Sheikh Xasan Barsame xabsiga 7 sano ku jiray xabad joojintaas awowgay waa ninka ku dhawaaqay waxaad ka fiirin kartaan Google anywhere ka fiirin kartaan muxuu ahaa Nuur Cali Umar ayadoo af Carabi ah waqtigaas af Carabi la qori jiray af Carabi ayadoo original ah daartaan page-kayga ka helaysaan ninka xabad joojinta ku dhawaaqay xabada la joojiyay dagaalka la daayay aasihii SYL ee xoreynta dalka buug iyo qalin ka bilaabay SYL 2 nin ayaa af Ingiriis iyo Carabi iyo Talyaani ku hadli jirtay Ali Shida Cabdi weligiis yaalihiis ku muusan qorin muusan dhihin waxaan ahay gudoomiye SYL 13 SYL weligiis kuma qorin Xaaji Faarax Ali Cumarna waxaan u maleynayaa dadka uu soo saaray dadka uu wax ka dhigay iyo magaciisa oo fiya Xaaji Faarax ku qoran dadkaas aan iga dhashay iga soo jeedo adeeradaya marka dalka anaa iska leh waxaan ku dhahay dalkan anaa iska leh war kala ma haysaan wallahi billahi tallahi maalinkaas maqaayadii lagu kulmay Safari restaurant ha Lisbon kaamirada hayso maalinkaas waxaan ku dhahay Soomaaliya 25% haday leedahay badroolka Soomaaliya banaanbaxa London waa kansala waa joojinaya laakiin waxa lagu yiri wax ka gala ma leh warqadda Soomaaliyana waxa ku qornaa Soomaaliya 5% leedahay 5% kaasna Farmaajo iyo Khayre Fahad Yaasiin ayaa iska leh laakiin gunno security iyo shaqaalaha gunnadeeda ay leeyihiin Soomaalida Sudan oo maanta xornimo qaadatay ayaa 45% leh Libiya wali dagaal ka socdo oo dawlad sax ka dhisnaan oo la kala haysto ayaa 45% qaadato annagoo ka awood badan maantay la leeyahay 5% Farmaajo hadduu dhiilkan Maarso 2021 uu saxiixo milyaneer aan weligiis dhicin ayuu ahaanaya asoo gurigiisa fadhiyo commission shidaal kasta Soomaaliga qodo commissionkaas Farmaajo Fahad Yaasiin iyo Khayre iyo wasiirka maaliyadda wasiirka badroolka hadda haysto iyo Mudee dadka ugu sheer
حسن شيخ محمود لقطة سوق شيء لقطة لقى شيء 2 مليون شير أيو كله حسن شيخ محمود وحبا الله ما قرناي وحبا دوران ماني الله دغح سو دادا ما جري markii hore xasan wuu ka diidanaa wuu ka dagaalamayay laakiin hadeer heshiiska waa dhacay in uu ka aamuso oo dagaalkan joojiyo maadaama xasan uu yahay 2014 ninkii saxiixay dilka shidaalka qayra u saxiixay 4.5 milyan ku qaatay 2.5 milyan uu celiyay 2 milyan share uu ku leeyahay walaalaha sharafta leh waxaan leeyahay walaalaha sharafta leh waxaan leeyahay dalka maantay waxa ku tartamayo loolan ugu jiro kristaankii hay-ad ah tiimkii Axmed Biif oo hogaaminayay oo hay-ad ah diinta islaamka iyo fanaaniinta iyo intaas lagu dagaalamayo hay-ad kalena waxa way kuwa gay iyo lesbian iyo ha u badnaadaan kuwa Scandinavian ka imaado iyo mid ka dhaho ugaaska qaniisiinta ay caanaha isku shubay marka anyway dalkiina soo ku badbaadsan lahaydeen adinka yaqaan laakiin aniga baare keene cadeeyaan ahay waxaad arkayseen baryahan mudooyinkan dambe waxaad arkayseen dagaal u dhaxeeyo walaalaha xujo waxaad arkayseen dagaal u dhaxeeyo walaalaha xujo waxaad arkayseen muxuu ahaa fanaaniinta always isku qabsato riwaayadaha qoto burburkii baabi kala tagi كل شيء لعق وايك everything لعق marka dadkan haddaad wax u sheegtid oo tashkiilisid oo wacigelisid oo dhahdid warnimayahow qaabkaana lacag loo sameeyaa xataa lagama yaabo inay ra'yigaaga qaataan ma garateen laakiin walaalaha waxaan leeyahay weligiin ma isku daydeen in aad intaad isku imaadaan hal all fanaaniinta adoonka Yurubta kale reer UK intaad isku imaadaan qaraxyada iyo dhibaatada dalka ka socdo ma isku daydeen inaad dhahdaan maantay lacagan u arurnaa fan aan u sameeynaa heesa u qaadeena oo 20 pound 15 pound lacag fan aan u sameeynaa ma dhahdeen maya sababtoo nin walba hadduu stage ka soo istaago wuxuu rabaa lacag iimaan kale ma jiro nin maanta u naxayo dalka ma jiro waxa maantay masiibada haysato iyo dhibaatada haysato fanaaniinta iyo aktarada ha u badnaadaan qoot iyo xujo waxa kamid ah xaasidnimo iimaan aan lacag ahayn ma jiro hore labo lacag isku dirto kana wax isku dir maaha dhibaatada dalka haysato wuxuu saameeyay maantay hobaladii waa bari aad arki jirteen oo maqli jirteen oo xataa mar ay lacag u aruur jireen fan iyo lacag u aruur jireen fanaaniin lacag arurnay ma jiro miirkooda maskaxdooda ayaga dhan waxa waaye bal wadaas waxay u isticmaal lahaayeen lagama yaabo maanta inay dhahaan $20,000 ku soo gasheen meel dhigo future mustaqbal business ganacsi ku gal caawa maxaa cunaa bacasi ujeed kale male life kooda waa hal isku imaado dhacbatash maxaa cunaa caawa maxaa lagu caweeyaa waxaas is not life waxaan leeyahay riwaayadaha YouTube-ka hebela lacagteena cunay hebela lacagteena dhacay Abuukar Bahdiyaana dhacay lacagaana loo diiday intaasba waxaad uga bixi kartaan Abuukar hadduu yahay isku keenihii soo saarihii isku dabarogii maanta YouTube kaliya lagu shaqeynayo ma isku dayi kartaan inaad gadataan hal tiyaatar oo habeen walbo jimcaal aad soo fadhiisataan konton baan baa Allah ka dhigay joojiya YouTube-da waxa ku wadaan ee soo fadhiista studio hal tiyaatar intaad iskugu imaadaan iibsataan isku dayabal inaad habeen walba riwaayad ku dhigtaan marna aad fan lacag intaad arursaan dadka qaraxyada ku baaba'ay iyo dadka wabiyaasha iyo dadka abaarta haysto inaad wax gaarsiisaan walaalaha sharafta leh waxaad ogaanaysaan maantay qof walba inuu u ordaayo siduu lacag ku heli lahaa laga soo bilaabo farmaajo ilaa iyo gulwadaha laga soo bilaabo nimanka shabaab ah ilaa kuwa yaryar $50 ayaa lagu siinayaa maanta bamba gacmeed haddaad saldhigga boolis ku turtid $50 ugu yar haddaad miinada qaadid oo soo gelisid wadadana $100 iyo $150 lagu qaadanayaa
ninka booliska oo hooyo dhashay oo miinadaas ka bixin karo waddada ma jiro. ex control afgooye ceelasha biyaha ayaa miino hadda ka hor 2 wiil meesha ku xireen, 4 askari arkeen. 4 askari wiilashii intay qabteen kaartay looto. ciyaalkan shabaab waa wiilal tababaran oo Mareykan tababaro, waxba yaan la dhihin islaamiyin iyo ciyaal xaafad ma, nimankan Mareykan ayaa tababaro. nimankan shabaab intay iska fujiyeen 4 askari la dagaaleen laga baxsaday, miinadina meesha taala si fiican ma loo xirin. 4 askari shabaab soo waceen, waxay ku dhaheen waryaada see ku dhacday raggeena inaad soo weerartaan. maya annaga dadaa noo soo sheegay haddaan nimankan qabanin hadhowdi annaga nala xiri lahaa. hadda nimanka xataa waa sii deena soo ma arkin. miinadeen aawe, miinadiini waa idin daboolnay, meesheedii taalaa waa daboolnay, ciidaa idin dul saarnay, idin kama taaban. dadkaasaa maanta amni ka shaqeynaayo. masiib idinku dhacday. dalkiina maanta badbaado u baahan yahay walaalaha sharafta lahow. waxaan maanta aad jaaniska siinaysaan oo daawanaysaan ood arkaysaan intay soo istaagaan social media oo leh hooyadaa la kubsaday iyo aabaha la kubsaday iyo anaa la kubsaday iyo macalin la ifruxmeey, imise ayay ku qaataan. kolley dhiilkan oo islaamiyiinka Axmed Biif ayaa soo xiray. qofkii fanaan u baahan inuu fanka ka baxo Axmed Biif la xiriiro $50,000 sanadkii mushaarkaaga ilmahaaga biilkooda axsan ayagaa dhaamo. nimankan diinta gaalada faafinayo, nimankan saqajaannimada iyo dhaqan xumada faafinayo. waan salaamayaa walaalaha sharafta leh. programkan hala sheergareeyo. waxaan leeyahay walaalaha reer UK iyo kuwan isku haysto riwaayadaha, waxaan leeyahay haddaad aad leedihiin annaga waan la dhacay oo lacagteena YouTube la geliyay, studio furta, Soomaalina ka duceysta. dalka dhibaatada ka jirto waxaan leeyahay waxa loo gurmado intaa riwaayad sameysaan. caawinaad iyo garab haddaa u baahan tihiin studio everything waan laga caawinayaa, laakiin waxaan leeyahay studio every Friday aad ku qabataan riwaayadaha oo xataa YouTube waxaan uga baxdaan. haddaad rabtaan lacag inaad sameysaan studio furta, waana laga caawinayaa haddaad diyaar tihiin. waxaan idinkaga tagayaa wax walba lacagay noqotay. faafinta diinta gaalada, faafinta faqsiga iyo maqnuudiinta iyo qoomuluudka, iyo in maantay rag dumar iska soo dhigay aad maalin walba noo soo sheergaraysaan oo luuqada noo soo dhigtaan. xaaraam calayk. haddaadan ahayn maxaad u daawanaysaa? haddaadan ahayn maxaad u sheergaraynaysaa? naagtaan cabanayso oo qeylinayso oo cabaadayso oo leh macalinka isoo furxumey, abtiga isoo furxumey, kana isoo furxumey. maamul goboleedyada iyo dowladaha iyo dhammaan waxay maantay mushaar ay ku qaataan 12 kaniisad magaalada Muqdisho ku taalo. Somaliland, Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabeelleba, Koonfur Galbeed baa ha u sii badnaato. ilaaha dad hanuuniyo, ilaaha idin soo hanuuniyo. waxaan leeyahay wacyigelintana waan wadaynaa, waan badinaynaa. fanaaniintan ishaysatana dhaqan xumadan fanaan laguma aqoonin. wixiina dagaalkiina luuqaha idin ahaato, fadlan luuqyada isku qabsada, luuqa isku dagaala, joojiya social media lacag lagu helaa. adoo caytamaya ama qof walaalka u jawaabaya social media intaa soo fadhiisatid, qofaa cayna, qofaa yeela. dhaqan xumadan iyo codadka la duubayana dad baa lagu yaqaanay ka waantooba. fanaan kale codka duubaya iyo waxaas waa laga fiican yahay. ilaaha idin soo hanuuniye, wax kale aan dhihi karna ma naqaane. kani waa professorkii qabiilada oo isku bedelay shiiqul kulli. waa salaama walaalaha sharafta leh. aniga mar walba runta igu imaanaysaan, iguma imaanaysaan in aan idin qariyo waxa dalka ka socdo. wallaan idin qarin.
dalkaana anaa iska leh anaana badbaadsanayo adinka afkiin ammaan ha laga helo برنامج الشير قراي واجب كينا وشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته